السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله خالقه دمان waxaan idin leeyahay xilligaad joogtaan waqtiga lagu joogo wanaagsan. Anigu waxaan King Sulphur waxaad iga daawanaysaa King Sulphur Media Studio-ha aan ku leenahay magaalada Muqdisho, East Africa, Soomaaliya. inta kadib ahaantii waxaan rabaa ugu horeyn inta aan u guda galin muuqaalkan aad ciwaankiisa ku soo aragteen YouTube-ka. horeyba ciwaankiisa aad u soo aragteen inta aan u guda galin waxaan rabaa inaan u mahad celiyo Alle weyne subxaanahu wa ta'ala halkan soo gaarsiiyay aniga channelkayga marka xigta adiga hadda i daawanaya ayaan si kale iyo laba kugu mahad celinaya maxaa yeelay la daawaduhu waxa uu wax ku yahay daawadaha. daawade la'aan la daawado ma socon karo. macnaheedu waxaan kala jeedaa YouTuberada, TV-yada, website-yada, raadiyoyada meel walba waxay wax ku noqdaan in ay helaan daawadayaal ama dhageystayaal ama akhristayaal ama soo booqdayaal. marka waxaan leeyahay kale iyo laab ayaan idinku salaamayaa aad baan idin jeclahay runtii. ma rabo inaan ku sii dheeraado hadal haynta ama hadalladeeda kale waxaan rabaa sida aad ku soo aragteen ciwaankeena in aan dul istaago waraysi xasaasi ah dhinacyo badan taabanayay aan ka qaaday maama Malyuun aan ka qaadayo idinkuna wada dhageysan doontaan wada daawan doontaan waraysi dhinacyo badan taabanaya waxaan ka cudur daaranayaa adiga i daawanaya haddii aad u fahanta in aan kaga dan leeyahay maamada inaan qodqodo ha u qaadan ee kaliya waxay iga tahay in aan idin fahansiiyo maamada waxay ka cabanayso wax iyada ku jira ee haya inay yihiin. waayahay maama Malyuun ugu horeyn waxaan ka codsanayaa inaad salaanto daawadayaasha ku xiran aniga channelkayga. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. waxaan filayaa sidoo kale inay daawadayaashayda iyaguna ka qaadeen dadka ku xiran aniga channelkayga. su'aasha labadan ku weydiinay maama waxay tahay bal inta aan u guda galin horta barnaamijkan waraysigan xasaasiga aan doonayo inaan ka qaado inta aan u guda galin ugu horeyn bal waxa laga yaabaa dad badan oo aanan ku aqoonin inay jiraan maamo bal isbar dadka aanan ku aqoonin. waayahay MMS ayaa la dhabaatiray waxaan ku weydiinayaa MS maxaa laga soo gaabay saddex xaraf waa MMS maxaa laga soo gaabay talo maama Malyuun Suuban waa magac la yiraahdo MMS haddaad rabtaan inaad barataan waa maama Malyuun Suuban weey. waayahay maama Malyuun Suuban maama emta kale waa Malyuun saadana waa Suuban maama Malyuun Suuban daawad waxaan filayaa magacaas maanta laga bilaabo inuusan ku seereynin MMS. waxaan ku weydiinaa maama magaca Suuban waxaan filayaa inuu yahay magac dumar marka ma hooyada baad ku abtirsta adiga abtirka hooyada miyaad gashaa soo ma ahayn inuu qofka aabihi ku abtirsado ubadka aniga hooyadii Suuban samanta ugu filan jannada firdawsna Allaahii. maxaad aabaha ku diiday inaad ku abtirsato waliba adiga qof laan dheera ayaad laan dheerata anaga ku ognahay Soomaaliya oo naag laan dheerata maxaad diiday inaad aabaha ugu abtirsato maxaad hooyada ugu abtirsanaysaa aabba aan korsan isku dhijin maayo aniga. okay aabba aan korsan isku dhijin maayo aabaha kumuusan korsan wax u fahmay barbaarintaada waxa qayb lixaad la ka soo qaadatay hooyada waa sababta hooyada ugu abtirsanayso. okay maamo ma ahayn laakiin inaad hooyada ku abtirsato laakiin adaa xorriyad leh adan ku dayna ku soc laakiin waxaan ku weydiinayaa hooyaday Allah u naxariisto tir aabana umadan duceyn sama fiicano inaad aabana u duceyso aabahayna Allah u naxariisto. ma santahay haddii aad naga qaadato taladeena aabana Allah u naxariisto tir anaguna waxa leenahay maama Malyuun aabaheed Allah u naxariisto. waayahay dadku waxay yiraahdaan maama Malyuun way waalan tahay haday run tahay in adigu aad waalan tahay way burun tahay in adigu aad waalan tahay maamo yaa ku waalay adiga Soomaaliyeed baa i waalay nimanka Soomaaliyeed baa ilu gooyay nimanka Soomaaliyeed baa i dulmay kuwaan dhalay iyo kuwa ila dhashay iyo kuwa kale iyo mid qeyrsada iyo mid i dulma baa i waalay.
dad badan baa qaba su'aalaha aniga ku weydiinayo dad badan baa qabo aaminsan marka waxaan rabaa in aniga aan u noqdo dadka su'aalaha dadka ku weydiin lahaa qofkii adiga ku weydiin lahaa aniga noqdo aan doonaya iyaguna ay ka faa'iideystaan raali ahaw maxaa sameyn kartaa haddii aad waalato maam hadii la iswaalana dhooqada la walaaqdaa xarka la cunaa kaadida la cabaa madaxa la marsadaa madaxa la marsadaa okay waa fahanay intaas oo dhan baa la sameyn karaa hadii qofku uu waasho waxa ku weydiinaya baabo dadkii lahaa maamuliyeen way waalan tahay hadii iminka daawanayaan warbixintan aad anigu isiinayso maxaad leedahay fura dhagihiina qofkii waalnaa baa si fiican u hadlaysay qofkii waalnaa waa kan hadlaysay ee soo wada fariista kulligiin oo dhan been baa barateen xaarkaan walaaqanaya oona xaarka cunayaan imaanaya waxa i waalay waxa igu maqaalaha inaad qurbaha joogto Soomaaliya mar kolkii aad Soomaaliya ka tagtay xageed qabatay Soomaaliya la iga soo qaxiyay Mareykan baa timid oo imanka Mareykan waxa ka yahay yahay Mareykan caruur baan ku dhalay caruur okay Mareykanka caruur baad ku dhashay oo caruurtii ku koray markaa caruurna waa la iigu keenay caruurna waa iga soo horeysay waa la igu guursaday waa la ifulaa waa la igu dhibciyaa waa la iga tagaa waa la igu dhibciyaa waa la iga tagaa waa la igu shubaa waa la iga anaa korsaday ilaa Soomaaliya markaan soo qaxay gabar baan ka balaqbalaqsiinay haye qurbaha markaan soo galay kuwa kale aan ku dhalay haye maxaa haray marka maxaa walaawe yes walna marka intooda badan waxa lagu yaqaanaa inay xishoodaan waxay leeyihiin kuwa oo xan hoos u xantamay ina arkay marka wax badan ba waxa arkay dumar xantamay oo hoos u hadlay maamuli waxay leeyihiin dhibaatada hooyo maliyun ay sheegayso waa la qabnaa oo waa arin sax ah way jirtaa bay leeyihiin laakiin annagu qarsanay soo inay maamadu laftirkeedu qarsato ma ahayn maxay afku la qabsoosay la aamus weysay way leeyihiin maxad bal iyaguna ku qanacnaa u jawaabaysaa marka waxa rabtaa ina aamuso la billaah tallah inaan aamusin wallahi billaah tallah inaan aamusin maamuli waxay leeyihiin kuwan aqliga xun hatta hadii ay maamadu hadasho iyo buuqdo qaaliso aamuska kar weynayo message u reebno email u dirnay maxay sameyn kartaa waayay maxay awoodeen inay sameyso washada iga leeyin maxaad u jawaabtay oo wallahi billaah tallah intaan san mariyaha u marsado baan magaalada maraya waa gartay magaalada maraysaaba wax aad sameyn kartid waayahay kulay waa arin waa qaadanaydono laakiin waxay leeyihiin hadii adigoo san u qaawan ama saad sheegtay waxaanu dhooqa amarsan wad magaalada marto waxa jirta Mareykanka saad sheegtay ama hadda waxay leeyihiin maamadu ama booliska laami ku jiidaan oo jirdilaan oo garaacaan soo dhibaato ma maxaad iyaguna mid ayadaad ugu jawaabaysaa ilaa anigu waxay la yaabin maam raali ah anigu waxay la yaabin aniga iyagan u hadlaya dadkaas iyaga ayaan u hadlaya anna adiga ku aqoonsanahay inaad tahay qof u hadla dhammaan dumarka Soomaaliyeed oo ku aaminsanahay taas ka soo haddana waxa jirto in aniga maadaama qof wariye aan ahay inaan iyagii u hadlo waa suurtagal marka maxaad ugu jawaabaysaa waxay leeyihiin maamada haday san laami ku socoto laamiga lagu jiiday way qabaan maxaa ugu jawaabaysaa madayda Soomaali man baa waalay I'm crazy yahay maamuli waxaan ku weydiinayaa adiga naftaada iyo nafta caruurtaada keebaad jeceshahay naftaydan ka jecelahay nafta ilmahayda naftaydan jecelahay kin sabab ilmaha soo adiga maadan dhalin ilmaha adiga ayaaba dhashay maxaad ugu jeclaan weyday inta aad jeceshahay naftaada in ka badan soo inaad jeclaato ma nabadkaa sababta u jecelahay waxa weeye ilmahaygu haddaan xanuunsado da iyagu ma xanuunsan ana xanuunsan haddaan caafimaad qaban aniga caafimaad qaban riij haddaan noqdo aniga riij iyagu riij ma laakiin waxbaan ka siinayaa waxay okay waayahay laakiin waxaan maqlay maadaama qof wariye aan ahay oo meelo badan aan galo waxaan maqlay in aad ilmahaaga ka cayriday gurigaaga ay kula deganaayeen Mareykanka aad ka cayrisay iyadoo la ogyahay Mareykanka marka wadamada qurbaha la joogo in xaaladda carruurta ay ku sugan yihiin marka laga ceeriyo guryahooda maxaa sabab inaad ka cayriso marka intaan isku dul baabi'i lahayn baadantu waxay igu jirtaa inaan banaanka kala marno wallahi waa jawaab ugu filan kulli daawadaashan waa jawaab iyagana ku filan inta isku dul baabi ee dilaamadu inaan banaanka kala marna wanaagsan
bismillaahi raxmaan waa laba ciidan tortaan waayahay thank you mama waxaan ku weydiinaya marka aad u mahadsan horta ilmahaagu waa imisa caruur ah baa ifka kugu joogta thank you 3 caruur ah baa u joogto ilaahay kuu deysto waxaan ku leenahay ilaahay kuu deysto ilaahay kuu waxbartay oo dalkooda iyo diintooda iyo dantooda anfaca iyo dadkoodaba Allah ka dhigo aan leenahay maama waxaan ku weydiinayaa ilmahaaga maadaama aad ka ceeday gurigii 3 caruuraan ay yihiin ilmahaagu ilmo baarayaal ahba oo ku baare fala oo ku asxaan falo baarayaal ku oo ku maqlamiya mise wacaasiyaan bal nabar ilmahaagu runta idin sheego ma arag calooshayda ilmo ka soo baxay oo baar ii ah been ma idin sheegayo ma arag daawad adiga daawanaya waxa laga yaabaa ducadaada inuu ilaahay u aqbalo hooyo milyuun walaa waxaan si kale ilaaba ah kaaga codsanaya daawade inaad u duceyso 24 saac waqti baa salaada la dukadaa 5 salaadood ee markaad codkan muuqaalkan daawato kadib 5 salaad dukan doonto salaad walba dabadeeda ama salaad walba kadib marka salaamu calaykum tiraado walaal u duceeyo hooyo milyuun inuu maskaxdeeda dejiyo ilaahayna ubadkeeda baar ugu dhigo intaas ka codsanaya walaal maama milyuun waxaan ku leeyahay horta ugu horeyn ilaahay ilmahaaga baariya kaaga dhigo walaalaha daawanayna waan ka codsaday inay ilaahay ku baryaan intaas kadib dad badan baa waxay leeyihiin maama milyuun Soomaali fiican ma taqaano oo Soomaaligu iskuma fiicna maamada maxaad ugu jawaabaysaa Soomaali baan ku hadlayaa Soomaaliga ku hadashaa maamadu waxay ku hadashaa af Soomaali waa inaad la haystaa marka luqad kale iyadoo ku hadlaysa aragtaan codkeeda isoo duuba maqalka asaga iyo soo dira kan hadda waxay cadeynaysaa in Soomaaligu iyadoo ku hadasho waqtiga ku hayo oo qof caan ah tahay oo mashquul badan tahay ugu dambeyn maxad kula talinaysaa ilmaha ku caasiya waalidiintooda maadaama qof waalida adigu aad tahay maxad kula talinaysaa maama bal iyadoo noo jawaab ilaahay wuxuu ku yiri hooyada xaqa saddex xaq bay hooyada leedahay qof hooyadii saddexdeedii xaq guday inuusan MMS caayeenin baan idin sheegay waxaad la baxday maamo magac nimeed magac rageed baad la baxday oo la yiraahdo Xuseen Deeq adoo milyuun adoo MMS ah maama milyuun Suuban adigoo ah baad Xuseen Deeq la baxday waa maxay sababta ayada Xuseen Deeq ma noqon karo anu naag baanahay ilaahay baa iga dhigay waanu garanay maxaad nin isugu ekaysiinaysaa maxaad magaca nimeed ula baxday waa maxay sababta ka dambaysa laakiin waxaan ninka isugu ekaysiinaya inaan masaxayga kor qaato oo waxaan soorida waligay ka raadin jiray raggay ahaayeen anigu inaan soorida isa siiyo oo marna aan Xuseen Deeq shaarkiisa isu gashado marna aan MMS iska dhigo is that make sense runtu waa taas ay maamadu aad ay run ahaantii u mahadsan tahay su'aalihii xasaasiga ahaa ee adana gaabnaa ee aan weydiinayay maama milyuun Suuban oo MMS la baxday kuna abtirshatay hooyadeed intaas baa iga dhan tahay waxaan adiga daawanaya mar labaad ka codsanaya hooyadan Soomaaliyeed la mid ah hooyada aad u soo duceyso inuu maskaxdeeda ilaahay dejiyo waxaan dareemayaa buuqan ka dhex buuqayo waxay tiraahdaa Soomaalidu karkarka wax ka keena macnaha digsiga waa kuleelka ama dabka ku shidan wax karkarinaya ee ka hoos guuxaya waa cadaadis iyada lagu hayo awgeed usoo duceeyo inuu ilaahay maskaxdeeda dejiyo sidaan ka dareemay maskaxdeeda waa taam oo qof su'aalaha iyo jawaabaha ay bixinayso iyo haddana siday u hadlayso markaad miisaanto waa qof isku dheelitiran run ahaantii waxba ka haleysnayn marka hooyo milyuun usoo duceeyo ayaan idin leeyahay sidoo kale aniga waxaan leeyahay ilaahay culayska hayo wax ka qaado ilaahayna u fududeeyo wax walba maanta xaggeeda jira wax walba ay tabanayso intaas kadib
waxaan idinku soo gabagabaynayaa haddii halka hadda muuqaalkan uu marayo aad soo gaartay ha ka tegin walaal adan muuqaalkan subscribe saarin like aan like garin commenten aan hooyo ugu soo ducooynin halka walaal ha ka tegin ugu dambeynaa haddii aad awoodid sii share garay anigu waxaan ahay King Sulphur waxaad iga daawanaysaa barta YouTube-ka aan ku leenahay King Sulphur Media sidoo kale Facebook page-ka aan ku leenahay King Sulphur Show waxaan ahay haddii aad muuqaalkan ku aragto hataa waa share garan kartaa dad baa la diri karo waxaan idin leeyahay waayuhu ha idin macnaadaan waxaan idinkaga tegayaa kan iyo muuqaalka xiga asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu